waa lamaane dhowaan aqalgalkooda ka dhacay Muqdisho. إني أحبك. Sakariya Ikraan ayaa aqalgalkooda dhaliyay hadal hayn badan kadib markii baraha bulshada lagu baahiyay sawirada caruuskan oo ka duwan caruusyada kale. Araskeeni waa uu ka duwanaa aroosyadii lagu dhigay magaalada Muqdisho. maxaa yeelay araskeeni waxaan go'aansanay inaan ku raali gelino Allah subhanahu wa ta'ala ugu raacaysiino shaydaanka. Sakariya Cabdiraxmaan Maxamuud iyo marwadiisa Ikraan Abuukar Maxamed waxa uu ahaa farxadda aqalgalkooda tusaale wanaagsan dhalinyaro badan oo isdoonaysa xilligan. sidaan ka warhayno arasyadeena waxay u dhacaan xilliga hore Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa lagu raali geliyaa xilliyada dambena dhalinyaro shaydaan duufsaday ayaa waxay sameeyaan wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan raali gelinayni taas ay u maleeyaan horumar iyo ilbaxnimaduna waxa waaye mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali gelinayso. bulsho badan ayay soo jiitay caruuskan ku baahay baraha bulshada balse Sakariya waxa uu inoo sheegay inuu qaacida ka sameeyay asturnaanta iyo in la raaco sunnada nabiga. قاعدة ير أو أن سميها جرت حلقي جوركيجا مركان أركبره بالشدة ليس القميص ليس الشيق أما بمعنى ليس الشيق لمن لبس القميص والعمامة إنما الشيق هو عارف شريعة الرحمن والعامل بها قفك الشيقة معها قفك قميص كي عمامة كل بسنة وكلية بل ومدك دين الشرع إسلامك يقانو كنا دقما ضد بدنا حاجر دين يقانين لاكسين كل دقمين وحنا قبل أنت دين إن كل دقنو wax kasta waxay ku saleysan yihiin ku dhaqanka diinteena suuban balse sidoo u dhacay caruuska lamaanahan oo si qurux badan dadka Soomaaliyeed ugu falceliyeen. wallahi caalamka islaami gaar ahaan Soomaalida diintooda aad bay u jecel yihiin aad bay ugu dhaqmaan wax oo maanan arkin oo yani waa iska yar yihiin wax oo falcelin xun ka sameeyay laakiin Soomaalida waxaan dareemay in ay diintooda inay ku dhaqmaan waafajiyaan shariicaduna ay jecel yihiin. Ikraan Abuukar oo ahayd caruusada la aqalgashay Sakariya Cabdiraxmaan ayaa dareemaysa nolol farxad leh wuxuuna u ahaa maalintii aqalgalkooda maalin aysan hilmaami doonin. ما شاء الله waxaa ahaa maalinta adduunka ugu farxada badan waayo maalin Allah subhanahu wa ta'ala ku raali gelinayo oo shaydaana laga careysiinayo waa si qurux badan oo ugu dhacay gabar aroos sidii yani u libisato wax kasta ee u baahan tahay waa haysta alxamdulillah haddana shaydaan oo kaliya ka careysiiyay Allah subhanahu wa ta'ala ku raali geliyay taasna waan ku faraxsanahay. Ikraan ayaa weydiiyay sida uu aragto aroosyada xilliyada qaar ka dhaca hoteelada waaweyn ee Muqdisho. taas Allah subhanahu wa ta'ala raali kama aha waa in asqaabiso ina yani ziinadaada inta wax soo marsto raga u bandhigto ma ahan kaliya ziinada quruxdaada waxa kaaga filan ina aad tusto seegaaga aniga waa qurux wax kasta waa marsaday hotel arooskay waa laga dhigaa hadana alxamdulillah waan isxijaabay oo indhahayga waxa aan lama arkayn. waxa isku xilqaamay guurkan quruxda badan dhalinyaro habla ah oo la magac baxay guuri iyadoo asturan waana tusaale wanaagsan. Fardowsa Raage Maxamed ayaana ka mid ah dadkii qaban qaabiye caruuska lamaanahan Sakariya iyo Ikraan. Tawaan ugu bedeliyo waxa ugu badan inay horta soo bateen gabadhiido qaawan maalinta farxadaada oo nimcada Rabbi ku siiyay guurka alxamdulillah waxa loo baahan lagu nimciyo ma aha in lagu kufriyo markaas waxa sabab u badan waxa gabadhu inay isqaawiso jirka inta ugu muhiimsan banaanka la soo dhigo maalintaas oo muusiga jirto oo laga yaabay dadka qaar oo helaya saxaabta inay maxay dayacal badan meeshaas ka dhalato arrimaha ugu badan waa ugu weyn waxay tahay in xijaabkii la suulay ama xijaabka meesha laga bixiyo gabadhu qaawanba la galbiyo inta badan lamaanaha ka hor aqalgalkooda waxaa jira heshiis la is hordhigo iyadoo taasi ay sababi karto khilaaf iyo caqabado hor leh oo soo wajaha guurka balse Sakariya Cabdiraxmaan ayaa weydiiyay arrinkaas. walaashay hadda wax gooni ah igu xirta ma jirto waxa ugu weyn ee igu xirtay si sharaf leh ciideeda iga soo doono taasna wax ugu muhiimsan waa qofka muslimka ah laga rabo waana kaga mahadcelinaa walaashay sida wanaagsan ay casuuntay waalidiinteedana igu balamisay taas ayaa ugu weyneed wax kale oo gooni ah ay igu sameeyay ma jirto. Sakariya iyo Ikraan oo halkan oo ka dhacay aqalgalkooda waxay sameeyeen wado wanaagsan oo arooskooda xilligan dad fara badan oo ka farxad geliyay maanta waxay ku faraxsan yihiin qaabka u dhacay aqalgalkooda. Maxamed Xuseen RTN Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking
kadibna guji install si aad ula soo degto abka. haddaba ka isticmaal taleefankaaga adeegyada IBS Bank. mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.